wararka naga soo gaaraya gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in saaki xiisad dagaal laga dareemayo tuulada la yiraahdo Finley oo dhaxaysa birta dheer iyo degmada Boocame ee gobolkaasi Sool halkaas oo shalay ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed. dagaalkii shalay ayaa daba socday iska horimaad kooban oo ka dhacay miyiga Balecad oo ku dhow Saaxmigaag halkaas oo ay ku dagaalameen laba ciidan oo saan ahaa waxaana dagaalkaas ku geeriyooday inta la xaqiijiyay hal ruux. wararka saaga laga helaya ayaa waxay sheegayaan in xaaladda ay degan tahay balse la dareemayo xiisad dagaal oo u dhaxaysa labadii dhinac ee dagaalamay kuwaas oo weli goobta lagu dagaalamay isku hor fadhiya markaasi ay bilaaban karto xabadda sida ay sheegeen dadka deegaanka. dadka tuulada Finley u dhaxaysa birta dheer iyo degmada Boocame waxa ay sheegeen inay dareemayaan cabsi ballaare oo ka aadan in dushooda lagu dagaalamo sidii hore u dhacday isla markaana qasaare ay kasoo gaarto dhankooda. wararka ay helayso idaacadda Risaale ayaa waxay sheegayaan in maamulka Puntland uu wado dadaalo ku aadan sidii xal looga gaari lahaa dagaalka oo ah mid soo laalaabtay waxaana la filayaa in ciidamada kala dhex dhigo si dagaalka loo qaboojiyo. deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag oo ay dhinacyadooda kala joogaan maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa sanadihii la soo dhaafay waxaa ku soo batay colaadda u dhaxaysa labada maleeshiya beeleed waxaana jirtay in qaarkood colaadaas ay markaasi heshiis kala dhex dhigeen maamulada Puntland iyo Somaliland hayeeshee qaarkood aan lagu guuleysan kuwaas oo weli dhulka miyiga ah ee ka kala tirsan gobolada Sool iyo Sanaag lagu dagaalamayo.